kulanti wanaagsan mid kamida ku soo dhawaada sheekooyinkeena imtixaanaha inoo ahaa sheekadeena maanta ciwaankeedu waa bil iyo balli waxaa jiray wiil diin barasho u doontay dhulka fog deegaankoodii maalin maalmaha kamid ah ayuu arkay socoto ku sii jeeda deegaankii uu ka yimi waxa uu damcay inuu fariin u faro aabihii dhambaal buu faray nimankii oo waxa uu ku yiri aabahay waxa aad ku tiraahdaan wiilkaagii 5 salaadood weeso qudha ku dukada soo noqodkana soo mara waxa uu ugu jeeday waqtiyada wax la cuno hal mar baan wax cunaa nimankii ayaga oo aan garan sarbeebta ay fariinta xarbaarsaneed ay gaarsiiyeen wiilkii aabihii soo noqodkii bay odagii soo mareen odaygii waxa uu wiilkiisa ugu soo dhiibay qumbe subag ah iyo 30 wasaladood oo kumbus ah alaabta oo kali ah uma dhiibina isna weed sarbeeb ah ayuu soo faray oo waxa uu ku yiri wiilkaygii waxa aad ku diraahdaan bishu waa 30 balliguna waa buuxa nimankii intii ay dhaxda sii socdeen ayay sahaydii ka go'day waxay go'aansadeen inay subaga bad shubtaan hilibkana qaar la baxaan ayaga oo sida hilib iyo subag dhiman ay wiilkii guddoonsiiyeen waxay sidoo kale u raaciyeen fariintii aabihii wiilka u soo diray wiilkii ayaa qumbihii hortooda furkii kaga furay kumbuskiina tiriyay waxa uu u sheegay in qumbihii dhiman yahay tirada kumbuskuna bad maqan yahay nimankii yaabe waxay ku baraarugeen in fariintii ay sideen wiilka uu ku tilmaamay tirada hilibka iyo xaddiga subaga ee loo soo dhiibay waxa ay ogaadeen in lagu gartay khiyaamadoodii dabadeed wiilkii waa ka raali geliyeen sheekadan oo xiiso leh isla markaana ka turjumayso sarbeebta iyo dhaqankeennii hore ee Soomaalida sida loogu adeegsan jiray ciwaankeedu waa bil iyo balli waxa ayna dhaxmartay wiil waalidiintiisii waxbarasho kaga hayaamay meel ka fog waxbarasho u doontay baahi ay qabatay hadal sarbeeb ah u diray oo uu kula jeedo maalmaha waxa uu yiri 30 maalin tusaale ahaan aabe 5 salaadood hal weeso ayaan ku dugtaa bil iyo balli ayaana ciwaanka sheekadan u yahay saaxiibayaal muuqaalkan inoo share gareeya boggaana Facebook follow inoo dhaha waa maasantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh